Sharma boy sanadkan 2021 bilada fanaanka ugu wanaagsan wuxuu kula loolami doonaa fanaaniin aad u culculus. Wizbi ayaa kamid ah, ilkacase qays ayaa kamid ah iyo Doni. Haddaba adigu fanaankaaga sanadka yaad u dooran lahayd afartan fanaan ee Soomaaliyeed ee raabarka ah ee aad ka dhalinyarada u xiiseeyaan. Haddii aad doonayso muuqaalkan inaad ka bogato, waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horeyso channelkeena aad soo booqatay, nagu soo biir subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto hanaga ilaabin. Mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa sida had iyo goorba aad ugu xiran tahay muuqaalada aan ku soo gudbino. Waa hagaag. dabcan sanadka dhamaadkiisa ayaan ku jirnaa, sanadka 2022 khayrkiisa Allahna waafajiyo. sanadkanna inta inooga harsan wanaag, bashbash, caafimaad iyo nabad inaan ku dhameysano ayaan rajeynaynaa. dalkeena Soomaaliyana Ilaahay nabad uu inooga dhigo. dabcan sanad kasta markuu dhamaado waxaa la bixiyaa fanaanka ugu wanaagsan sanadka. annaga haddii aynu nahay ciyaalka xaafadda ama dhalinyarada aynu nahay, fanaaniinteena ma aha Xasan Aadan Samatar, ma ahan fanaaniintii kale waaweynaa intii dhimata Allah u naxariistay iyo inta noolba, laakiin waxaan aad u taageernaa raabka oo aad iyo aad ah fan la jaan qaadaya fanka kale ee dunida. fanaaniin badan ayaa raabers noqday, maalin walba fanaan cusub oo raaber ayaa soo gala. gabdha ayaa sidoo kale kamid ah fanaaniinta raaberska ee aadka heesooda loogu xiran yahay. laakiin afar fanaan ayaan isbarbardhig ku sameeyay aniga ahaan, oo aan doonayo in daawadayaasheena iyaguna fikirkooda saliimka ayna la wadaagaan. afarta fanaan ee halkan aan idinku hayo yaa noqon kara shakhsiga sanadka, fanaanka sanadka, raaberska sanadka ee Soomaalida. waxaan soo xushay Sharma boy, Doni, ilkacase qays iyo Wizbi. waa afar fanaan oo runtii aan kala dhicin, waa afar fanaan oo taageerayaal badan leh, waa afar fanaan oo saameyntooda iyo maxaan ku yiraahdaa xirfadooda ku jooga fanka. xirfadooda iyo saameyntooda maadaama ay ku joogaan fanka, qof walba dhinac ayuu ka eegayaa. waxaa la qiimeynayaa dabcan marka oo biladaha la bixinayo dhinacyo badan la qiimeynaya. hees miyuu qaaday ninkan oo kaliya maaha, reactionka laga bixiya la qiimeynaya, commenteska la qiimeynaya, likeska iyo viewska la qiimeynaya. mid mid ayaan u dul istaagi doonaa. Sharma bal ha ii dambeeyo. Doni wuxuu kamid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda reer Muqdisho oo aadka iyo aadka fanka ugu soo baxay. dalka dibadiisa inuu ku nool yahay filaya Doni, laakiin wuxuu sidoo kale kamid yahay fanaaniinta aadka loo jecel yahay oo fankooda horumarka uu sameynayo marba marka ka dambeysa. heesa dhowr ayuu soo qaaday. waxaa kamid ah 3 bilood ka hor hees uu qaaday yaa isgaaray ayaa la heestan. waxaa daawatay heestan 3.4 milyan oo qof ayaa ka daawatay bogiisa YouTube-ka Doni. sidoo kale Doni heesa dhowr ayuu qaaday oo horey uu soo qaaday iyo kuwo cusub oo hadda uu qaaday. tusaale ahaan 5 bilood ka hor Doni wuxuu qaaday hees lagu magacaabo meeshan ka imid ma ilaabin. heestan 5 bilood ayay ku jirtaa. waxaa daawatay 872,000 oo qof. milyanka wax yar ayaa uga dhiman. Doni sidoo kale heesa badan ayuu soo qaaday. adi hees Allah uu soo qaaday 10 bilood ka hor 1,600,000 oo qof ayaa daawatay. 1,600,000 oo qof ayaa daawatay. Doni nin lagu degdegi karo ma aha. dabcan waxaa jira iyaguna fanaaniin dhowr ah oo markaasi saameyn ku leh TikTok-ga iyo YouTube-ka iyo Facebook-ga, laakiin Doni intaas ayaan ku hakinayaa. Doni aniga heesiisa kuwa yar ayaan dhageystaa. runtii waa nin talent leh, waa nin heesiisa qaar reaction laga bixiyo TikTok-ga waxa u badnaadeen. Sharma boy anoo eegi doona, waxaan eegayaa ilkacase qays. waxaa horta uu yahay boqorka raabka. ilkacase qays markii uu raab bilaabayay, adiga i daawanayana waad yareed, anigana waan yara. xaqiiqda marka laga hadlo Chinese-an ka dhageysan jiray. ilkacase qays waa nin oo shalay aan bilaabin raabka, weligiin wuu hanjabi jiray fanaankeena haddii aan la kaftamo. ilkacase qays sanadkan wuxuu qaaday heesa dhowr ah oo aad u badan, oo markaad sii tixraacdo heesaha uu ilkacase qays qaaday dhammaantood waa kuwo hit ah. hit waxaan la jeedaa heesa gadmay. waa ninkan heesiisa hees dhul dhacdaa ma jirto. ilkacase qays heesii ugu saameynta badnaa ee sanadkan uu qaaday waxaa kamid ah heestii qabiilada.
qabiilada heestii uu u qaaday waxa ay noqotay heestii ugu saameynta badneed oo ku qasabtay fanaanka dhowr qaybood inuu ka dhigo part 1 part 2 part 3 inuu ka dhigo dad badan oo Soomaaliyeed ka codsaday oo inuu ku soo daro magacooda qabiilkaas inuu soo dar sidaan waaye iyo waxyaabaha la midka heesta qabiilada haddii aan eego 2 bilood ka hor 2.6 milyan ayaa ka daawatay bogga YouTube-ka uu ku leeyahay alfanaan ilkacase qays sidoo kale ilkacase qays heesa badan ayuu qaaday cirka ii jira cabaar oo kale heestaas bil ka hor ay ahayd waxaa u daawatay 742,000 sidoo kale heesaha uu qaaday ilkacase qays waxaa ka mid ah maangaabku hurdo ama ladamiya heestan 5 bilood ka hor ayuu qaaday 1.6 milyan ayaa u daawatay heesta iskifo oo iyaduna ka mid ah heesaha TikTok-ga aadka ugu faafay waxa uu qaaday ugu yaraan sanad ka hor waa sanadkan bilowgiisa ay ahayd dabcan sanadka hore dhamaadkiisa waxa heestan u daawatay 5.9 milyan waaye 6 milyan ay heestas ku sii socotaa ilkacase qays wuxuu qabsaday showyo aad u waaweyn showyada uu qabsaday dhammaantood showyo cidla ah oo kuraasta ay maran yihiin ma noqon aad bay dadku usoo buux dhaafinayeen show dhawaan Mareykan uu ka dhacan filaya haddii aan qaldanahan iga raali noqda aad buu u shitay aad bay dadku dabcan u xiiseeyaan fankiisa marka la eegana ninkaasi nin loo dhawaan kara maaha waa nin cimaamadiisa aan la haysan karin waa nin aad u furfuran oo Soomaalidu jecel haddii aan u imaano Wizb waxa uu ka mid yahay fanaaniinta raabariska kuwooda dardarka kusoo galay waa nin reer Muqdisho ah oo Kenya ku nool isaguna Wizb heesaha aadka ugu gadmo waxaa ka mid ah heestii 6 bilood ka hor uu qaaday mar horaan sameeyay heestan mar horaan sameeyay wuxuu ku karbaashayay ninkan King CK 4.1 milyan ayaa daawatay 4.1 milyan ayaa daawatay heesta halista Wizb waxa uu daawatay 454,000 2 bilood ka hor ayuu qaaday Wizb sidoo kale hees Doni uu qaaday 4 bilood ka hor 1.2 milyan ayaa u daawatay Wizb iyo Jay-Z Boy heesa isla soo qaadeen way jirtaa iyaduna Jay-Z ma aha inaan ka tagay ma aha lil balil inaan ka tagay muuqaalo kale ayaan ka sameyn doonaa bal isbarbardhig ayaan sameyn doonaa laakiin maanta afartan ayaa inoo saaran afartan markaan eegnana kuwa kale ayaan gudbi doonaa heestaas 217,000 daawatay waa 2 week ka hor ayay soo baxdayba Wizb lama taabtaan untouchable 3 bilood ka hor ayuu qaaday 641,000 ayaa u daawatay Wizb intaan aniga garanay showgii ugu horeeyay aan ku arkay aniga ahaan inuu showyo kale ka qayb galay waa laga yaabaa waxa uu ahaa showgii xariir uu qabsaday ee Nairobi uu ku qabsaday oo uu kaalin weyn ka qaatay Wizb heesaha sanadkan kuwooda ugu saameynta badan ee uu qaaday waxaa ka mid ah isla heestii maxkamadda la isgeynayay ee uu ku weerarayay King CK heesta wariif lagu magacaabo 5 bilood ka hor ayuu qaaday waxaana u daawatay 2.1 milyan oo qof marka Wizb nin cimaamadiisa la haysan karo isagu ma aha isoo qaba heesa lahay ayuu qaaday sidoo kale heesa fara badan ayuu qaaday Sharma Boy haddii aan u nimaano Sharma Boy heesa dhowr ayuu qaaday sanadkan 2022 showyo ayuu qabsaday waan eegi doonaa showyadii uu qabsaday iyo sida ay ahaayeen markaan eegno viewska iyo like taba qof ku haysta ma laha weli scoreka baraha bulshada Sharma Boy waa sax qalbigaad sidata waxay noqotay hees hit ah oo sanadkan heesii ugu saameynta badnaa ka mid noqday sidoo kale heesaha aadka ugu gadmay waxaa ka mid ah heestii uu kaynaan la qaaday ee waayo 2 bilood ka hor ay ahayd 3.4 milyan ayaa daawatay 3.4 milyan ayaa daawatay Sharma Boy heesa badan ay isla soo qaadeen saaxiibkiisa maslax mideeye inta garab uu joogay heesta adigu uun ahaa 4.3 milyan ayaa daawatay 4 bilood ka hor ay ahayd sidoo kale Sharma Boy heesaha aadka ugu gadmay sanadkan waxaa ka mid ah heestii uu doob la soo qaaday ninkan
wadanka uu joogo isagoo u dhashay ibabi oo saameyn gaar ah yeelatay hees walba uu soo qaado dabcan saameyn gaar ah ay leedahay dabcan Sharma boy heesiisa lama soo koobi karo laakiin dhamaantood waa wada hit hees ka dhacdana ma jirto oo dhamaanba heesiisa aad bay cajiib u yihiin hees bilkor uu soo qaaday ayaa jirta oo ma soconaa la dhahayo heestan 1.6 milyan ayaa daawatay like-tana xadka ayay ka baxday comments-kana iska bada marka afartan fanaan markaan isbarbar dhigno adigu fanaankaaga waake fanaanka sanadka maanta hadii bilad gacanta lagu geliyo oo lagu dhaho raabarka sanadka afartan fanaan ka soo dhex saar yaad ka soo saarneed ani ahaan Sharma boy ayaan siin lahaa laba ujeedan oo siin lahaa Sharma boy faniskiisan kamid ahay fankiisa aad baan ula dhacsanahay Sharma boy heesaha uu qaado horeyna isaga uga hadlay waa heeso 5 jirka ilaa 40 jirka ay wada fahmi karaan marka Sharma boy sidoo kale mid labaad aan ku siinayo waxay tahay Sharma boy heesaha uu soo qaado waxa dareemaysaa in ereyada si kastoo ay ahaadaan ciyaalka xaafadda u ahaadaan heesaha muuqaaladooda ama codkooda waqti badan la soo geliyay la soo duubay la soo hagaajiyay kadibna si tartiib ah inta lagu soo dhigo adiga oo dareemaya in heestan waqti la soo geliyay aad qaadanayso fanaaniinta qaar heeso qurxoon ay soo bandhigaan laakiin muusigan ku cajibineen ama erayadan ku cajibineen ama hanaanka siiqada lagu heesayaan ku cajibineen adigoo fanaankee ayaad ka calaamaysan lahayd fanaanka sanadka afartan fanaan qaybta commentiga fikirkaaga inagu reeb si share garay muuqaalkan si asxaabtaada kale ay u codeeyaan waad mahadsan tahay garuubyada WhatsApp iyo Facebook inaad geyn doonto ayaan ka rajeynayaa mahadsanidin